بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داوديال دهور ونكسن meel kasto ay joogtaan soo dhawaada sharaf iyo karaam war degdega wararka laga helayo gobolka Awdal gaar ahaan deegaanada kulaala xuduudda Djibouti iyo Somaliland ayaa waxay tilmaamayaan in boqolaal asgari oo hubeysan oo ka tirsan beelweynta Ciise ay goordhow gudaha u soo galeen maamulka Somaliland gaar ahaan gobolka Salel ilaa gobolka Awdal waa ciidamadii kaydka beesha Ciise oo la sheegay inay wataan hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha doordooriga u dhaca sida ay tilmaamayaan ila xilkas oo aan la hadalnayna ciidamadan waxaa la sheegay inay yihiin ciidamo fara badan oo ku hubeysan hubka noocyadiisa kala duwan qoryaha culus iyo kuwa fududba dowladda Djibouti ayaa toddobaadyo ka hor inoo sheegtay in beelweynta Ciise ay xaq u leedahay inay Djibouti ka soo tallaabto oo ay soo gasho Somaliland si ay dhulkooda u difaacdaan waxaana moodaa in Djibouti iyo Somaliland markan ay isku bareereen marka ciidamada laga hadlayo isla toddobaadkii la soo dhaafay wargeys ka soo baxo caasimadda dalka Djibouti ayaa yiri anfarta hubeysan ee dagaalka kula jirta Djibouti qaarkood gabaad waxay ka dhigtaan deegaano xuduudda ku yaala Somaliland taasi oo Somaliland ay si adag u diiday marmarsiyo marka waxay haysataa Djibouti in kooxo argagixisa oo ka soo horjeeda midnimada Djibouti ay ku dhumaalaysanayaan meelo kamid ah gobolka isla markaana xaq ay u leedahay dowladda Djibouti inay ciidamo geyso ama ay Ciise taageerto si ay halkaas u tagaan Cabdiraxmaan Cirro si adag ayuu uga carooday ficilkaasi isagoo sheegay intan aan la aqbali doonin isla markaana aan la iska yeeli doonin isagoo u sheegay saraakiisha ugu sarsareysa taliska militariga Somaliland in ay diyaar garow xoog leh galaan isla markaana ay qabtaan cid walba oo looga shakiyo in ay ku lug leedahay ficilada halkaasi ka imaanaya xogta la helaya waxay tilmaamaysaa in dhowr iyo 20kii saac la soo dhaafay si weyn loo dareemay culeysyada ka imaanaya dhinaca beelweynta Ciise iyadoo Ciisuhu ay dhowr jeer oo kala duwan ku eedeeyeen Somaliland inaysan dhexdhexaad ka ahayn si loo soo afjari lahaa colaadda dabada dheeraatay ee u dhaxaysa beelaha Ciise iyo Samaroon tii oo ay haddana dheer tahay in toddobaadyo ka hor aan aragnay beelaha Ciise iyo Samaroon oo hal meel ka wada dagaalamaya waxaana xogta sidaas la mid ay ku dartay in toddobaadyo ka hor sidaas oo kale Somaliland ay si cad u sheegtay inay Djibouti aysan ka aqbali doonin wax ay ugu yeereen daandaansi halkaasi ka soo socda oo ay sheegeen inay tallaabo cad qaadi doonaan markaad eegtid sida ay xaaladdu tahay maalinka ka dambaysa waxaad arkaysaa in tallaabooyin aan la mahdin ay markaasi ka soo kordhayaan xaaladda gobolka iyada oo Cabdiraxmaan Cirro uu dhawaan qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Djibouti una sheegay in Djibouti ay joojiso faragelinta walow Djibouti ay markaasi diiday wax faragelina inay wado haddana markaad eegtid sida ay dhinacyadu isugu durmaantumanayaan waxaad moodaa in dowladda Djibouti iyo Somaliland ay faraha iskula tegi doonaan hadda ciidankan Ciisaha ee soo galay gobolka waxaa la soo warinayaa in ay sidaas si la mid tagi doonaan deegaanka Gaarayso oo maalmihii la soo dhaafay dagaal ay ka dhacayeen waxay sidaas si la mid sidoo kale tagi doonaan deegaano kale oo kulaala xeebaha oo Lowyacde iyo Lughaye ay ka mid tahay halkaas oo la soo warinayo in Somaliland ay dhaqdhaqaaq xoog leh ka wado waxa hadda marka laga cabsi qaba inay toos isku farasaaraan ciidanka beesha Ciise iyo kuwa Somaliland waana markii ugu horeysay inta la xasuusto oo dhinacyadan dagaal foolka fool u dhexmari karo haddii aan hadda la helin xal degdeg ila wareedyo waxay tilmaameen in bilihii la soo dhaafay si weyn loo dareemay culeysyada halkaasi ka imaanaya waxaana macluumaadku inta ay ku darayaan in maalinka ka dambaysa la arkayo dhaqdhaqaaqyo aan wanaagsaneyn oo halkaasi ka soo kordhay iyo xaalado aan indhaha u fiicnayn oo Somaliland ay halkaasi ka wado dhinaca kale diyaarad la sheegay inay sido diblomaasiyiin generaalo military iyo khubaro amni oo Mareykan ayaa toddobaadkan si xoog leh iskugu maraya Kismaayo Somaliland iyo sidoo kale Puntland Somaliland bay ku hormaraysaa diyaaraddu waxaa la sheegay isla markaana xogu ay tilmaamayaan in diyaaradan ay tahay diyaarad military oo ay leeyihiin rag saraakiil oo militariga Mareykanka ka tirsan kuwaasoo la sheegay in dowladda Soomaaliya ay u gudbinayaan in Somaliland qalalaas xoog leh oo ka soo socda ama Somaliland laftarkeeda ay la wadaagi doonaan sida ay uga walacsan yihiin xaaladda dalka hadda uu ku jiro markaad eegtid xaaladdu sida ay tahay siduu jawigu isku qasayo xataa koonfurta markaad eegtid doorashada iyo loolankeeda iyo qararacdan jirta iyo markaad eegtid dhaqdhaqaaqyada ay Somaliland ka wado gobolka Awdal waxaa ku tusinaysaa in aysan xaaladdu jawi degan ahayn isla markaana laga cabsi qabo inay dagaal foolka ka dhacaan dhulka Somaliland
maadaama Israel raggan ay soo dhaweysteen beesha ciisana laftirkeedu wax ay tabanayso markaan la daawada muuqaalkan aadka u xiisaha badan waxaan idhi isaaqow hasha maal horaadkeegana hay hantideeda lahaw haantiyo dhiishaba buuxso oo haqa beel kelida samaroorka habaysanee danihiisa u heegan hambadaada u dhiib ciisaha heesiga sii hoos haw eegin warkiisa horaan kuugu naqaanee habkee baad baddisheen oon heellaniigu tunnaayoon hor dhignaa ummadda waxaan joognaa waa usuli waxay hoos sigtaa degmada Luhaya waa goobta usuli waxaan ka hadlaynaa dawladda Soomaaliland xukuumadda gobasha nabadeed wadda olkana wadda ilaahay baa markay tuulooyinka daraarba meel maraya shalay gaarsay ka dhacday waa lagu celiyay waxay ka dhacday ilaahay baa markay indhabiraale waa shicibkii dalka meel ay jabhad ku weerartay iyo meel nin dhib wada ay ku weerartay midna ma ognano gobol nabadeedna way waddaa gobasha nabadeed ay waddo waxa ay dee olla dhan bay ka waddaa nabadna dhan bay ka waddaa taa iyada weli cilmigeygii waan gaari laana lakum laga jirtay nabaddaas waan garan laana waxaan naqaanayna ma afrikaa baan joognaa gobol nabadeed mid doonayo olla wada waa waxaan garan weynay waxa weeye waar bal dib ha iskugu noqoto xukuumadda dib ha iskugu noqoto siday nabad ahaan jirtay wax loo wada jiray ha u wado iyada taa baan ku dhaafaya waa ciise aab buu leeyahay nid doonaya nid diidaba aab buu leeyahay ninka aabbihii diida isagaa yaqaana erka isagaa meeshuu la sagayo isagaa garanaya annaku ma garanayno caawi iyo biri iyo saadababa aab buu leeyahay aabbaha dee ninkii garabba u garan ninkaan garanayna iyuuna garanba sidaa baan leenahay sheeko kale iyo meelo kale oo laga warwareegi iyo odayo kolba bacadka iyo kolba kuleelka meel laga naanaabi waxaan garanayna maaha birina ma garanayno saadabana ma garanayno sidaa iyo nabadgelyo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد sida uu odayga horeba ka soo sheekeeyay waxa weeye waa tuulada usuli oo hoos tagta degmada Luhaya waxaan dana hayni nabaday ka xumaadaan bari saddex baan la yaabana nin nabad baa ka shaqeynaya gogol baa dhigaya leh oo la kacayo oo haddana wax ku aayo waa qori maxay ma taratastay ahay dhashiika wax la dhacay oo ku daldaloonina aqlab oo dumarka ma jiray fadala dhacay ka wala yaaban mid kale waa la yaaban for ilaahay dalla wuxuu yiri ciise u dhaafo oo shisheeye ku duulay aniga way la cajay ciise laba ciise ma ciisuhu wax buu leeyahay ilaahay ku karaamaystay aab buu leeyahay ugaas buu leeyahay ilaahay hiba siistay haddii wax khaldan yimaado kolkeena wax khaldan jirin dee ciisuhu niyo dantay waa iska jirtaa laakiin wax khaldan ha kolku yimaado ciisuhu aab buu leeyahay waxa weeye ninka labaan ka kala dhigayaa leh ma garanayno maantana ma garanayno berrina ma garan doono waxa weeye ama siday nabad ahaan jirtay baa loo dhaqaaqaa ama carmaynta waa la iska daayay tan iyo raabtigayo isagoon baa dafna soo yidhi rag haddeer hadlaya war malqayo oo leh maxaa ku idhahdaay isagoo nagu soo duulay iyo waxle ciisaa halkaa kaga duulay waalkii isagoo baa dafna soo yidhi waxa weeye annagu haddaan maanta leenahay arrin annagu gar waxaanu leenahay ninkaan u leenahay iska garanaya ninkaan gar u lahayn baa nin kale nagu gadaadayo oo gogol baan u dhigayaale isagaan gar u leenahay annagu ciisuu gar buu yaqaan isagoo lagu kullifo maaha inay xibadda ma qaado gar buu yaqaanaa ciisu waxaan gar u leenahay ninka gogoshaa wadaale hadduu isagu nala hadlayo una gar bixinayo oo wixii gafkii ciisaa ka galay oo ka sheekaynayo waa halkeeda haddii uu raabtigayo horboodayo uu waani nabadaynayaa leeyahay
أنا كنت هبتجي هرت هرب كل نعمة ولا صير هذا وما جيسها كل فلين وأريا الله يقان ما أنا قاعد دونين أنا وذي كريس أقول داري ودك خرج كهدمين أنا أقول هالكابر هذا كهكتة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.